ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم walaalayaal mawduuca aawaynu ka hadlayno waxaa la yidhaahdaa aafaat lisaan carabka kan dhibaatooyinka uu leeyahay ayaynu ka hadlaynaa intaynaan gelin aafaadkaas ximinta tan carabka la yidhaahdo waa ximin barakaysan waa ximin ilaahay ugu nimceeyey bini aadanka inay ku gutaan waxyaalo tiro badan waxaa weeye ama ha noqoto dhadhanka xaggiisa ama ha noqoto xagga bayaanka iyo wax caddaysiga qofku wax caddaysanayo ximinta qabata weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlahayey wuxuu yidhi alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan bayaankaasi waxa weeye in wax la caddaysto xayawaanka kale cajmaawaad baa la yidhaahdaa wax ma sheegan karaan laakiin bini aadamku hadalkaas waa cajaa'ib buu leeyahay waa nicmo weyn ma garatay mana sinna qof hadla iyo qof aan hadlin ma sinna نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد walaalayaal mawduuca aawaynu ka hadlayno waxaa la yidhaahdaa aafaat lisaan carabka kan dhibaatooyinka uu leeyahay ayaynu ka hadlaynaa intaynaan gelin aafaadkaas ximinta tan carabka la yidhaahdo waa ximin barakaysan waa ximin ilaahay ugu nimceeyey bini aadanka inay ku gutaan waxyaalo tiro badan waxaa weeye ama ha noqoto dhadhanka xaggiisa ama ha noqoto xagga bayaanka iyo wax caddaysiga qofku wax caddaysanayo ximinta qabata weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlahayey wuxuu yidhi alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan bayaankaasi waxa weeye in wax la caddaysto xayawaanka kale cajmaawaad baa la yidhaahdaa wax ma sheegan karaan laakiin bini aadamku hadalkaas waa cajaa'ib buu leeyahay waa nicmo weyn ma garatay mana sinna
qof hadla iyo qof aan hadlin ma sinna oo idinkuba waad garan kartaan. ilaahay markuu ka hadlahayay wadaraba allahu maala rajulayni axaduhuma abkamu laa yaqdiru cala shayin wahuwa kallun cala mawlaahu aynama yuwajihhu laa ya'ti bikhayr hal yastawi huwa waman ya'muru bilcadl wahuwa cala siraatin mustaqiim. yacni qof aan hadli karin iyo qof hadli kara oo wax sheegan kara oo khayr amri kara oo macruuf sheegi kara iyo qofka kale ma sinno weeye. marka carabka kan waxa weeye wuxuu qabtaa wax weyn. kelimada iimaanka isaga ayaa lagu yiraahdaa, kelimada iimaanka oo diinta lagu soo galo isaga ayaa lagu yiraahdaa. oo waxa weeye wadaraba allahu maalan kalimatan طayibatan ka shajaratin طayiba asluha haabitun wa farcuha fi الsamaa. kelimada طayibka waa kalimat اliimaan, kalimat اliimaan. kelmadda kalena waxaa lagu yidhaahdaa oo shirkiga ahna waa kelmadda khabiidka ah oo ilaahay uu isna sheegay uu yidhi waxa weeye iyaduna waxa weeye waa kelmad khabiida. sidoo kale ilaahay gaalnimada lagu kufriyey oo ibliis ku kufriyey hadal baa u horreeyey, qaala aasjudu liman khalaqta tiina, waxaan u sujuudahayaa qof aad ka abuurtay cara ka abuurtay miyaan u sujuudahaya. marka kelmaddii iimaanka iyo kelimadii kufriga labadaba carabka ayay ka xasilaysaa. waxa weeye khayrka tirada badan oo lagu qabto waad ogtihiin, diintii baa lagu soo galay. qur'aanka kan cadiimka ah oo adduunka bedelay waa hadal, waa qowl. ma garatay ilaahayna uu ku yidhi nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. yacni jihaadka weyn oo adduunka lagu bedelay waa kelmaddaas, waa qur-aanka ilaahay soo dejiyey. isagana carabka ayaa laga yidhaahdaa oo lagu dhawaaqaa, waa oraah. ma garatay marka dikriga ilaahay waxyaalaha wanaagsan oo dhan waxaa lagu qabtaa oo qofku uu ku gaarahayo ridwaanka ilaahay iyo jannadiisa waa qowl. qowlkaas maaragtay haddee wax kaluu wataa, qowl iska qalalan ma ahane waa qowl wax wata, laakiin qowlka laga maarmaan weeye. oo qofku hadduu hadli karo waa inuu qiraa, yani shahaadada waa inuu qiraa haddii aan maanic jirin, haddii kale diinta soo geli maayo. saa darteed marka carabka kani wuxuu leeyahay qiimahaasuu leeyahay. walidaalik baa haddii la gooyo diyaa waajibaysa, diya kaamilah ayaa waajibaysa carabkaas. saa darteed marka carabka kan sha'nigaasi maadaama uu leeyahay oo maxaanku idhaahdaa nicmooyinkaas oo tirada badan lagu qaban karo, haddee dhinaca kalena wejiga kalena shiduu leeyahay, wejiga kalena shiduu leeyahay. waxaa waagi hore la odhan jiray markii ay ka hadlahayaan nimankan adduunka hadda maxaanku idhaahdaa u tugtugtaroon oo reer galbeedka ah, waxay odhan jireen iclaamka waa suldada afraad ayay odhan jireen. sababtu waxa weye adduunka waxa bedela, waxa u badan meediyaha, hadalka u badan waxbuu bedelaa. budrus haali mudakaradiisii uu ka qoray markuu UN-ka madaxda u ahaa wuxuu sheegay CNN-ku inuu ahaa cudwiga 16aad ee majliska amniga inuu ahaa, oo ah yani waxa wax tashkiilinaya oo ra'yi caamka tashkiilinaya isaga inuu ahaa. marka hadalku sha'ni weyn ayuu leeyahay oo la dareemi karo. walidaalik buu jihaadkana ka qayb galaa oo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi jaahiduu biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum. carabka waa lagu diriraa oo waad ogtiin xasaan ibnu haabit nebigu wuxuu odhan jiray intuu u dhiga magaciisa wuxuu odhan jiray uhjuhum wa ruuxu lqudusi macak. marna waxaa soo aroortay riwaayo ah waxa aad leedahay waa uga dhib badan yihiin fallaaraha dhacahaya, waxaa uga dhib badan hadalka oraanshaha aad leedahay ayaa ka dhib badan. marka arrinkaas arrin sahlan maahan. carabtu ninka gabyaaga ah carabkay ka xiri jireen, carabka ayay ka xiri jireen. sababtu inuu caayo oo kale ayay diidan yihiin. marka carabka ayaa xoogaa jaan ahoo karin ah ayaa lagaga xiri jiray. aquulu waqad shadduu lisaanii biniscatin amacshara-taymin aطliquu lii lisaaniya. waris ibliisiday carabka ana wax idhaahda marka waxa weeye carabku sha'nigiisu aad iyo aad ayuu u weya. marka aafaadka iyo shiddada uu leeyahayna waa sidoo kale, sida nacmadiisu tahay
ayuu dhanka kalena shido weyn buu wataa xagga kufriga xagga maxaan ku idhahdaa alqawlu cala allahi bigayri cilmin xagga maxaan ku idhahdaa wax tiro badan marka kulli kama wada gaarno laakiin insha allahu nubad ama wax yar oo kooban ayaynu ka odhanaynaa haddii alla yidhaahdo wailaa waxa weeye wuxuu gaari karaa wax tiro badan sababtoo aqwaasha la yidhaahdo oo dhan haddii miisaanka sharciga loo bandhigo waad ogtihiinoo wax sahlan ma ahan oo waxay qaadan kartaa mujalladaad ayay qaadan kartaa aafaadkaas waxaa u horeeya ashirk gaalnimo baa u horaysa ilaahay lagu kufriyo hadda waa qowl waa maaragtay mararka qaarkood qowl weeye marna ficil weeye labadaba saan hadda sheegnay ibliis uu yidhi asjudu liman khalaqta tiina waa saas ilaahay waxyaalahay ku sheegeen gaaladu subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira yani waxa ay yidhaahdeen oo walad buu leeyahay iyo waxaasuu leeyahay waxa weye waa gaalnimadii walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min الظaalimiin waxa weeye ducaa ligayri illaahi ayaduna waa kufri waana qowl wax qowl ah marka arrimaha ugu horeeya oo la odhan karo aafada ugu weyn oo aan ilaahay dhaafin waa aafadaas in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saa darteed marka shirkigu wuxuu ka yimaadaa qowl ayuu ku yimaadaa qorahyo badan oo kufri ah ayaa jirta oo in layska ilaaliya ah ma garatay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بلا علم وحوي وأروين وحوي انت الله صور شيء يعدن تسلسل قوة تسلسل تصاعدي يعني وحوي وحكا بلابة ميشي يريد ilaa meeshii ugu dhibka badnayd ay gaarto marka meesha ugu dhibka badnayd maxay tahay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun arrinkaa waxaa soo gelahaya alkufr washirk baa soo gelahaya maxaa qowlun cala allahi bigayri cilmin weeye waxaa kaloo soo gelahaya waxyaalo kale oo qofku uu ku been abuurto alle iyo sharcigiisa ayaa iyana soo gelaysa marka waa ka caamsan tahay shirkiga laakiin shirkigu waa soo gelahaya dimnan ayuu u soo gelaya waxay odhan jireen gaaladu walaqad naclamu annahum yaquuluuna inama yucallimuhu bashar saas ayaanu ognahay inay leeyihiin yani waa gaalnimo marka alqawlu cala allahi bigayri cilmin wax sahlan ma ahan waa wax in aad iyo aad looga digtoonaada ah weeye dadka ku dhacahayaana gaalada keliya maahan xataa dad badanoo u intisaab sheegta dadka muslimiinta ah ayaa ku dhacahaya oo waxay fatwoonahayaan bimujaradi ra'yihim sida ayaga ay la tahay oo ay u maleeyeen ayay fatwoonahayaan arrinkaasina waxa weeye waa arrin weyn oo kabiira ah walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun waxa weeye ilahay in lagu been abuurto oo wuxuunan jidaynin la yidhaahdo ilah baa jideeyey waa xaraankani waa xalaalkan adoo aan suldaan haysan adoo aan xujo haysan adoo aan burhaan haysan xagga rabbi inaad saa tidhaahdid laguma ogola arrinkaasi gaalada keliya maahane ibnu kasiir wuxuu yidhi wayadkhulu fii hada kullu man ibtadaca bidcatan laysa fiiha mustanadun sharciyun aw xallala shayئa mima xarama allahu aw xarama shayئa mima abaaxa allahu bimujaradi ra'yihi wa tashahiih yani arrinkaa waxaa soo gelaya qof allaale iyo qofkii carabkiisa iska sii daaya oo yidhaahda kani waa xalaal kani waa xaaraan kan waa magaciisii ma garatay waxa weye arrin aad iyo aad u dhib badan weeye wadacaada arrinkaasi waxaa aad iyo aad ugu dhaca dadka dalbatay cilmiga ah ayaa aad ugu dhaca waxaa dhici karta mararka qaarkood qowlkiisa iyo ijtihaadkiisa inuu yidhaahdo ilaahay manhajkiisu waa saa ilaahay saasuu qabaa rasuulkiisu saasuu qabaa isaga oo mujarad ijtihaadin ah oo isagu iska ijtihaaday arrinkaas marka aad iyo aad in looga fiirsado weeye oo laga digtoonaado nuqdada labaad oo aafaadka ka mid ah waxa weeye ilaahay oo lagu been abuurto iyo rasuulkiisa ilaahay oo lagu been abuurto iyo rasuulkiisa waxa weeye iyaduna
وآفذ لباد وآدي آدك أولي بدن إلهي وحي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا كظلم بدن كي إلهي بينكو أبورتي يعني مجروي وفك بيان مارتي كذب بدن وكظلم بدن لما هيو marka ilaahay in been lagu abuurto arin sahlan ma ahan rasuulkiisa in been lagu abuurtana arin sahlan ma ahan nabiga waxa ka sugnaaday salawaatullaahi wa salaamu alayhi ahadiista mutawaatirka la yiraahdo oo la yiraahdo waxa weeye xad tawaatur bi gaartay xadiiska kan ah man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wa xadiis mutawaatir يعني حديث كاسي يعني كي النبي ku been abuurta salawaatullaahi wa salaamu alayhi ninkaasi hasi calaamadsado meesha uu naarta ka gali lahaa waaba galayaaye ha calaamadsado arrinkaas marka arrin khatar weeye wuxuu ku xambaaray maaragtay imaam al-Juwayni in uu qofka nabiga ku been abuurta uu ku gaaloobayo salawaatullaahi wa salaamu alayhi inkastoo jumhuurku ay arrinkaa ku diideen laakiin isagu halkaas uu aaday ilaahay ha u naxariistee marka in nabiga lagu been abuurtaa wax sahlan maan maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya sharci baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya wax tiro badan ayaa ka dhalanaya saa darteed marka been abuurashada nabiga lagu been abuurtaa la mid ma ahan qof caadi oo lagu been abuurtay isagu wasaga leh aniga in lagu been abuurtaa la mid ma ahan qofkii in lagu been abuurto la mid ma ahan waa xadiis saxiixa salawaatullaahi wa salaamu alayh ninka marka axaadiistaas been abuuradka ah mawduucaat baa la yiraahdaa kutub baa laga alifay oo tiro badan oo culimadu ka aliftay dadkaasi waxa u badnaa dad ka zanaadiqa ah ayaa u badnaa dad cubaad ahna waa ku jireen oo maxaan ku iraahdaa ku yani ku fududaaday waa ku jireen laakiin waxa weeye xadiiska noocaas mawduuc baa la yiraahdaa waa sharri anwaac alxadiis waa sharri dhaif kan u dhaif baarata kan ugu shar badan weeye kadibka waxa kaloo ka mid ah in been abuurad ama been la sheego yani been abuurad oranayna waa been la sheego in been la sheego oo dadka dhexdiisa la sheego been la sheego beentaasi laba loo kala qaadi karaa waxa loo kala qaadi karaa qofku wuxuunan ahayn in uu sheegto iyo inuu xadiiska caadiga iyo hadalka caadiga been ka sheego labadaasiba waa soo hoos galaan waxa weeye inuu u muuqdo oo yiraahdo nin fiican baanahay oo mu'min baanahay وما إلى ذلك سيد المنافقين توكله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حي أرانا هيان مؤمنين بانهي لكن مؤمنين معها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون marka dad noocaas jira oo u muuqanaya maxaan ku idhaahdaa waxaynan ahayn oo xaqiiqadooda ka gadisan ayagoo waa been waa nooc been ah waa nooc been ah oo runtii aad khatar u ah oo mararka qaarkood haddii uu muctaqad yahay meel daran ah oo munaafiqnimadu waxa weeye gaalada kuwa ugu liita weeye midda kalena waxa weeye in dadka dhexdiisa been laga sheego oo qofku dadka markuu la hadlahayo uu been u sheego asbaabaha ku xambaari kara waxa weeye waa asbaab dhowr ah waa ku xambaari karta waxa jira dad aan dan kala hayn oo been iska sheega ilaahay qadartiisa oo nooc jira ah ayadoo aan waxba ku taxqiijinayn ayay inay been sheegaan iska jecel yihiin noocaas oo kale waa waxa la oran karaa waa nooc marad ah oo hada danta uu kale yahay aan la garanayn mararka qaarkoodna ifsaad uu la jeedaa ifsaad ayuu ula jeedaa maxaan ku idhaahdaa mararka qaarkood waxaa dhici karta in dhibaato ka dhalato kadibkaas oo dhibaato aadii ka dhalato diintuna waa ka digtay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegay markuu yidhi aayatu lmunaafiqi alaa waxaa ka mid ahaa idaa xadaa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa yani waxa weeye waa nifaaqa camaliga ah qofka marka beenta badan khasla nifaaqa ku jirta khasla nifaaqa ayaa ku jirta nabiguna aad buu u nabcaa waxaa laga wariyay caaisha ay ka wariyay kaana abqadu alkhuluqi ilayhi alkadib waxa lagu nabcaan badnaa akhlaaqda xaggeeda beenta nabigu aad buu nabcaa hadduu ahalkiisa iyo dadkiisa qof been u sheego
kaana yucridu canhu waa ka jeesan jiray xataa yuxdia tawba ilaa uu toobad keeno ninkaas waxa weeye ama qofkaas waa uu ka jeesan jiray saa darteed marka akhlaaq fiican maahan akhlaaqdaasina waxay qofka dhaxal siinaysaa inuu meel daran ka dhaco iyaakum wاlkadib faina اlkadiba yahdi ila اlfujuur waina اlfujuura yahdi ila الnaar wla yazaalu الrajulu yakdib wayataxara اlkadib xata yuktaba cinda اllahi kadaaba qofku suu been u sheegaya marka dambe kadaab beenlow buu noqonaya soomaalidu waxay odhan jirtay beentu waa saddexoo marka hore cosob baa la yidhahdaa laguma yaqaan dadku waa kaa dhegaysanayaanoo inaad run sheegaysid bay u malaynayaan midda labaad calaqsi baa la yidhaahdaayo dadka qaarna waa ku yaqaanaan waruur bay ku odhanayaan qaarna waa isa kaa dhegaysanayaan midda saddexaad ceshay murshay marka laysu kaa sheego warkaasi runba ma yaqaan waa beenlow rasmi ah dadkoo dhan waa farahay kaa taagaya arrinkaas marka beentaasi been aad u xun weeye runtii mararka qaarkood waxaa dhici karta in ay dad badan balaayo dhex dhigto ma garatay waxaa ugu liita mucaamalaadka waxyaalaha beenta laga sheego oo waxa weeye waxay keeni kartaa qofkaasi inuu dhib weyn geysto ayay keeni kartaa sida xadiiska saxiixa albayicaani bilkhiyaar fain sadaqa wabayana buurika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima hadday been sheegaan waxa weye qofkaas uu been sheego baashaan baa wallahi waxa lagu soo suubiyey meel hebla wallahi waxa weeye bahal afka looga dhacay weeye wax cajaa'ib la weeye markuu waxa uu akhriyo oo waxa qofka uu qaato hadda waxa uu cunahayaa waa suxt iyo dhibaato ayuu cunayaa saa darteed marka arrinkaasi beenta waxa ka dhasha waa wax weyn oo khatar ah ma garatay iyo waxay keentaba beentaasi waxay ay keentaba ficilka ay keentaba xukunkeeda ayay yeelanaysaa waxaa ka mid ah dadka qaarkood inay beenta iskaga sheegaan inay dadka qusliyaan waylun liladii yuxadiثu biاlxadiiثi liyudxika bihi اlqowm saasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani halaagsan baa u sugnaaday ninkii sheekaynaya oo tusuu dadka ugu qoslisiiyo oo fayakdib waylun lahu waylun lah halaag baa u sugnaaday halaag baa u sugnaaday halkaasaa dadka qaarkood inay been sheegayaan mujarad inay dadka ka qoslisiiyaan inay dadkaas ka qoslisiiyaan ayaa dhici karta khuluqdaasi marka khuluq damiima weeye waa khuluq aad u laalaada waa arrin aad u xun fasaad badanna waa ka dhashaa ninkaasi xataa beenlow ah oo dadka beenta u sheega xadiiskiisa xataa waxa weeye waa lama qaato xataa iyadoo la og yahay ama aan la hubin inuu ku been abuurtay lama hubo laakiin xadiiskiisa matruuk baa la yidhaahdaa matruuk ayaa la yidhaahdaayo lama qaato waxa weeye wacda aad u liiliita ayay ku jirtaa waana faasiq qofkaasi faasiq weeye beenlowga ah waxaa sheegaya saa darteed marka kadibkaasi in aad iyo aad layskaga ilaaliyo wey arrimo bannaan baa jirta oo qofku uu ka sheegi karo wax aan marka xaqiiqo ahayn ilaa beentu waxa weeye waa waxaan xaqiiqo ahayn waxaa ka mid ah qofkii laba qof dhexdhexaadinaya oo yidhahda wallahi hebel waa ku jecel yahay wallahi run buu kaa sheegayey hadduu ninku haweentiisa u sheego oo uu yidhahda wallahi waa ku jeclahay maxaan ku idhaahdaa xalay ma ana seexan wamaa ilaa dalik oo ku sasabanayo dagaalka laftigiisa waa la ogol yahay oo maxaanku idhaahdaa tawriyaad iyo maxaanku idhaahdaa in la yidhaahdo taanu idinku dhigno waa la arki doonaa iyo waxa dhaca wamaa ilaa dalik taasoo kale waa la ogol yahay xadiikii umu kalhuum laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna الnaasi fayanmi khayran aw yaquulu khayra ma aha dadka qofka dhexdhexaadinaya oo maadaama uu rabo ummadda inu isku soo jiido inuu walahi run buu kaa sheegahayey waa ku ammaanayey khayr buu kaa maaragtay sheeganayey waxay kaloo tidhi walam asmaxu yurakhisu fii shayin mima yaquulu الnaasu ila fi ثalaaث tacni اlxarba wاlإslaaxa bayna الnaas waxadiiث الrajuli imra'atahu waxadiiث اlmar'ati zawjaha ma garatay inahaasi maadaama maqaasid badan oo ka xoog badan ayada ay dhacayso fasaad hadda ka dhalanayaan ay una jirin ninku hadduu hadda yidhahda haweentaada waa haweentiisa yidhahda waa ku jeclahay wax hadda dhibahoo ka dhalanaya ma jiro aan wanaag ahayn wamaa ilaa dalik saa darteed marka arrinkaasoo kale waxa weeye dhib ma leh runtii waxyaalaha qofku isagoo aan been u qasdin beenta noqdo waxaa ka mid ah inaan khabarka wax alla wixii la maqlo la sheego aafaadka ka mid tahay aafaadka ayay ka mid tahay wax alla wixii dadku ku hadlahayaan oo qofku uu soo dhegadhegeeyo inuu sii daayo
arrinkaasna waa laga digay nabiga xadiiskiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kafaa bilmar'i kadiban an yuxadita bikulli ma samic qofka been waxaa ugu filan inuu sheega wax alla wuxuu maqlay isagoo aan qarbalayn isagoo aan kala fatishin isagoo aan iskaan marin isagoo aan hubsan inuu sii daayo arrinkaasi arrin fiican ma ahan dadka ahlu cilmiga ah ama ducaadana arrin ku fiican ma ahan walidalik buu imaam maalik wuxuu yidhi iclam أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع يعني ninka qofka ma nabadgelayo qofka wax alla wuxuu maqla soo naqlinaya walahi saasa la laha walahi saasa la sheegay soo naqlinaya imaamna noqon maayo maxay ninka imaamka ahi waa nin is ilaaliya oo hadalkiisa ka fiirsada sidoo kale ibn mahdi la yakunu rajulu imaman yuqtada bih hatta yumsika can bacdi maa samic waxyaalaha aad maqashay qaarkood waanaad qarsan kartaa oo aad maaragtay qarin kartaa oo hayn kartaa laakiin haddaad tahay qof uun haddii ilaahay qadartiisa afkiisu iska furan yahay oo wax alla wuxuu maqlo sheegahaya waa nooc jira'a weeye waa nooc jira ah saa darteed marka arrinkaasi waa arrin khatar ah oo dalabatulcilmigana ku badan ama caamadan hadda ku badan waxyaalaha fadhi ku dirirka laga soo naqliyo arrinkaasi aad ha la iskaga ilaaliyo diinta tan waxay leedahay khasiisa yaab leh oo leedahay khasiisat al-isnaad isnaad waxaan sanad lahayn hogaan ma leh lawla al-isnaad la qala man shaa ma shaa saadarteed waxa loo baahay hadalkan yaa ku yiri yaa ka maqashay uu ka sii maqlay meel u tiiri laakiin waxa iska maqal soo daa marka arrinkaasi waxa weeye qofkaasi waa qof aad iyo aad looga baahan yahay inuu iska ilaaliyo waxa kamida waxyaalaha aad u liita ida laftigeeda oo haweenku aad u isticmaalaan marka ay rabto inay haweenta lala qabo ay shidayso in waxa aan ninkeedu u suubin ay sheegato oo ay rabto in naagtaas ku ka xanaajiso ay rabto xadiiskii asmaa anna imra'atan qaalat ya rasuul allah inna li darra فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور يعني هوeentan waxaan la siin dahab ee ka soo qaadatay oo ka soo caareysatay saaxiibadeed bay qolo kale ula tagaysay oo haweenta daris la waxay leedahay wadaadkiiba maanta waxa uu soo gaday dhagahaas iyo waxa iyo adduunka ama dharka ii gaday ama wama ila dalik yani hatta waxyaalaha ajaa'ibta waxa kamid ah ragga qaarkii ii sheegeen in haweenta kale ay dhar u gado ay tiraahdo wadaadkiiba ku soo dhiibay haduu maqan yahay oo hadda muxuu adiga ii soo kaamirsiiyay oo aniga ma soo adris malihi oo soo meel malihi wax jira maaha waxa soo dhan waxa weeye in aad taakiciso oo shidayso fasaad marka weyn weeye arrinkaasi oo been ah arrinkaasi haweenka u badan ma garatay waa in ay iskaga ilaaliyaan insha Allah taala aafaadka lisaanka waxa kamid ah kitmaanul ilm ilmiga oo la qariyo ama xaqa oo la qariyo arrinkaasi waa arrin khatar ah umadihii inagu horeeyeen waxyaalaha lagu halaagay bay kamid ahayd innagana waana kaga digay oo marka laga sheekeynayo umadihii hore umadahaas umada tagay weeye ee cibraan ugu sugan ilayka a'ni wasma'i ya jara inna loo jeeda in alladheena yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun anka hadii la qariyo xaq la qariyo waxa weeye arrin aad iyo khatar waawe وإذ أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه يعني إن الشيغان أيا بلن لوغا قاضي وإن قرنين حقا صادرتي وحوية ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفك قرية أرنكاس وحوية وقف دنبيلة حقا قريي نبينا وحا كسونا عليه صلوات الله وسلامه عليه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة qofkii cilmi qariya cilmigaasina ummaddu u baahan tahay waxa weeye qofkaasi naar buu galaya saadarteed marka waxa loo baahan yahay dalabatul cilmiga in ay xaq sheegaan oo ay ku dhiiradaan waa dhici kartaa dadka marka saldada haya in laga boqo waa dhici kartaa
waana afdal اljihaad markaas afdal اljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir mararka qaarkoodna waxaa dhici karta in laga boqo tayaarka markaas jira iyo dadka intiisa badani waxa kan inayna ogolayn arrinkaasina nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kama fi xadiidi abi saciidin alkhudri alaa laa yamnacanna axadakum haybat الnaasi an yaquula bixaqin ida ra'aahu aw samicah qofka dadka haybadda dadka iyo inuu ka boqo arrinkaasi yaynan ku khasbin inuu xaqa qariyo xaqa la qarinayo waxa weeye waa xaq loo baahan yahay waa cilmi loo baahan yahay ummaddu u baahan tahay cilmi waxaa jira mararka qaarkood la qarin karo oo malaaximta iyo waxyaalaha maxaanku idhaahdaa khusuusiyaadaho hadda dadka qaarkood aynan u baahnayn ayaga waa la qarin karaa waa sidii abu dar xadiiskii saxiixa ahaa uu yidhi cilmiga aan hayo haddaan sheego qoortaasaa tegaysa ama abu hurayra uu leeyahay nebiga laba weel baan ka buuxiyey mid waa sii daayey midka kalena waan hayaa haddaan qariyo waa inkaar baa dhacaysa maarata marka waa ishaari jiray mararka qaarkood oo ishaaraad buu bixin jiray acuudu billaahi min imrati الsibyaani wa ra'si sittiin waxyaala saasoo kale ah oo ishaaraad ah ayuu bixin jiray ma garatay cilmigaasoo kale marka waa la qariya mararka qaarkoodna cilmi laga qariyaa jira dadka qaarkood oo ay waxa ayna fahmi karin arrinkaasoo kale waa laga qarinaya hadduu mutashaabih yahay caamada lagula dhex wareegi maayo ma isticaabi karaan in loo sheega ma ahan marka xadiid laa tabluquhu afhaamuhum oo marka ay fitno ku noqoto loo sheegi maayo mararka qaarkood axaadiista qaarkeed oo ay dadka qaarkood si u deliishan karaan ama cilmiga qaarkiisu si u deliishan karaan isaga laftigiisa waa laga qarinayaa sidii xasan albasri uu kula diriray ama uu aad wax maaragtay xaraaqay in anas ibnu maalik uu u sheegay xajaaj ibnu yuusuf ama u wariyey xadiid alcuraniyiin nimankii curaniyiinta ahaa oo quraada laayay oo nebigu salawaatu ullahi wasalaam ciqaabay jazaa'a bima camiluu oo indhaha laga riday nimankaasoo kale xadiiskaasi in xajaaj loo sheego xasan waa dhibsaday wuxuu yidhi ninkaa daalimka ah waxaa dhici karta in uu maxaanku idhaahdaa ka faa'iidaysto oo uu dadka ku laayo ayaa dhici karta sidoo kale axmed axaadiista daahiruha alkhuruuju cala alimaam waxa weeye in caamado kale looga sheekeeyo mau arkaynin in caamada looga sheekeeyo axaadiista daahiruha alkhuruuju cala ala'imma wakadalika abu yuusuf arki maynin axaadiista qaraa'ibta ah in caamada iyo loo sheego arka u mayn marka arrinkaasi waa arrin khaas ah oo cilmi khaasa weeye ciddaas wax kaga dhumi mayso laakiin cilmigii xaqa ahaa oo xalaasha iyo xaaraanta ahaa oo ummaddu u baahnayd in la sheego weeye oo dadka loo sheego oo lagu dhiirado oo aan la qarinin ayaa loo baahan yahay walidalik baa saxaabada qaarkood axaadiis loo sheegay oo la yidhi dadka ha u sheeginina xataa laa yattakiluu ayay markay dhimanayeen ay sii daayeen oo waxay yidhaahdeen annagoo ka cabsanayna inaannu kitmaan alcilm aan suubinnay ayaannu sheegaynaa fii aakhiri xayaatihim ay sheegeen saas darteed marka arrinka ku saabsan kitmaan alcilm waxa weeye waa arrin khatar ah waa in laga digtoonaadaa weliba dadka culummada ah iyo dadka maxaanku dalabatalcilmiga ah iyo dadka ducaadda ah waxaa la rabaa inay xaqa ay ku dhiiradaan oo ay sheegaan waxaa ka mid ah oo sidoo kale aafaadkaas in aan kiibuu la mid yahay cadamu اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar in aan waxa khayrkaana dadka loo sheegin waxa xunna aan dadka laga reebin arrinkaasi waxay keenaysaa ummaddu inay ka dhacdo tareenka ummaddu inay baadiyowdo waana la nacladay ummadihii hore lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casaw wakanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh iskama ay reebi jirin wixii xumaana saa darteed marka waa la nacladay innagana marka waxaan rabaa inaannu amarno khayrka sharkana dadka uga digno wailaa haddii kale cadaab baa imanaysa cadaab ayaa imanaysa cadaabtaasina caam bay noqonaysaa caam ayay noqonaysaa oo daa'ifadii xumayd keli ah ma ku gaar noqonayso
ummadoo dhan bay la tegaysaa ummadoo dhan ay la tegaysaa shaciiradaas marka alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ummadda waxay ka xifdisay oo ka badbaadisay inxiraafka kulliga ah doontaasi inay gadoonto oo ay halaagsanto waxaa gacanta ku qabtay shaciiradaas alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar walidalik xadiiska saxiixa ahaa oo nebigu uu yidhi labadii qolo oo doonta raacday oo qolana kor degtay qolana hoos degtay qolada hoos degtay waxay yidhaahdeen kor ma dhibi karnee haddaan bahasha dalooshanno oo hoos biyaha ka dhaansanno yaan wax u dhinnay haddii la daayo halakuu wahalakuu jamiican dadko dhan waa halaagsamaya haddii gacanta la qabtana najow wanajow jamiican waa la badbaadaya saa darteed marka adaa isbadbaadinahaya qofku isaga isbadbaadinahaya haddii kale ciqaab rabbaani ah ayaa imanaysa aafada kale waa aafada loo yaqaano shahaadat الzuur shahaadat zuurku waa arin xun wuxuu keenayaa in xaqa la duudsiiyo wuxuu keenayaa xaqii qofkan in loo xukmiyo wuxuu keenayaa in wax badan ay dhumaan oo ummadda kala hayn kara inay dhumaan waxaa keenaya shahaadat zuur garata shahaadadaas marka diintu waa ka digtay wajtanibuu qawla الzuur markii la ammaanahay dadka fiicanna waxay waladiina laa yashhaduuna الzuur ma garatay arrinkaasi marka arrin adag weeye waana kabaa'irta waaweyn oo nebigu ka digay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo uu yidhi alaa unabbi'ukum biakbar اlkabaa'ir markuu ka sheekeeyey wakaana muttaki'an fajalas qaala alaa waqawlu الzuur fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat muttafaqun calayh yani arrinkaa uu ku celceliyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh sababtu maxaa weeye arrinkaasi xuquuqdii bini aadanka ayay qolo kale u meerinaysaa ma garatay nin baa wuxuu soo kaxaysanayaa ninaan waxba ka xishoonayn been buu sheegaya markhaati beenuu ka kacahayaa xaq dad lahaa buu qolo kala siinaya wamaa ilaa dalik arrinkaasi marka fasaad ummadda inay isqabsato oo isku baaba'do ayaa ka dhalanaysa ma garatay waana shahaadada noocaas oo kale ah marka haddee waa in aafo weyn weeye oo kabaa'irta ka mid ah oo loo baahan yahay in aad iskaga ilaaliyo nebiguna wuxuu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in loo soo gardhigan doono loo soo garramayo gartaasina uu xukminahayo sida isaga wuxu maqlay dadkana waa kala xujo badan yihiinoo qaar waxaa jira aad codkar u ahoo dhaxalka aabbaha kugu qabsanaya oo maxaanku idhaahdaa ku odhanahaya waxa kan anaa iska leh iska laalaadinahaya oo haddee ilaahay u sahlay in ay maarata gar naqsadaan qofkaasoo kale waxa weeye haddii aan u xukmiyo buu yidhi hadde wuxuu qaadanaya waa baail xukm alxaakim ma banneeyo wixii baailah laakiin daahir ahaan hadda laguu qabsan maayo haddii uu kuu xukumo qaadigii laakiin aakhira caggee ka aadaysa qofkaan u xukmiyo maaragtay wax walaalkii leeyahay hadde ha ogaado inamaa hiya biqidcatu min annaar waa naarta gobol ka mida weeye saa darteed marka shahaadatu zuurku dhib badan oo badan ayay haysaa khusuusan wakhtiyada noocaan oo kale oo diintu yar tahayoo meelaha qaarkood ee maxkamadaha waxaa jooga rag bannaanka warwareego oo la ijaarto oo xoolaa lacaga la siiyo oo been sheega meelaha caalam islaamiga weliba ka jirtaa meele waxaa jira qofku waaba markaa maxkamadda gelahaya inuuna weliga arag ayuu markhaati kacaya oo ku dhaaranaya wuxuu leeyahay wallahi anaa garanahayo waa kan oo xaggu maray oo faarax buu ahay oo diiriyuu ahaa wux hore uu sheegaya ma garatay arrinkaasi marka arrin aad iyo aad khatar u ah weeye arrinka kale oo aafaadka lisaanka ka mid ah waxa weeye lacnadda iyo cayda lacnadda iyo caydu wax weyn weeye lacnaddu raxmadda ilaahay qofka laga dheereeyo weeye oo qofka la lacnado ma garatay ama la caayo intuba waxa weeye waa aafaadka ka mid ah oo bini aadanka lagu imtixaanay ayay ka mid tahay arrinkaas marka waa in aad iyo aad la iskaga ilaaliyaa waxaana ugu xun ilaah iyo rasuulkiisa in la caayo oo arrinkaasi waa arrin haddee ummadda ay suubiso oo aynu ognahay aynu ka warqabno in aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacnahum allahu fi اdunya wاlآakhira waacadda lahum cadaaban muhiina qoladaas ilaahay waa lacnaday oo ilaahay wax ka sheegayo caaye mararka qaarkood waana ku gaaloobayaan
hadday ilaahay caayaan hadduu rabo ha rumaysnaado wax ka gedisan arrinkaas saasuu soo raray sheekh alislaam ibnu taymiya mujarad asab in la caayo ilaahay rasuulkiisa waa kufr ilaaha isaa iyo rasuulkaagii kuwa le baad arkaysaa haaulaa'i yakfuruun xaasku waa ka furmahaya ma garatay arrinkaasi arrin khatara wey waa ku gaaloobaya waa riddo waa in la iska ilaaliya ilaahay iyo rasuulkiisa in la caayo waa arrin weyn wey lacnadda qofka mu'minka ah waxay la mid tahay dil in la dilay oo kale walacnu lmu'mini ka qatlih xadiis muttafaqun calayhi qofka mu'minka in la naclado oo la yidhahdo lacnada kugu dhacday ma garatay waxay la mid tahay adoo dilay oo kale la mid tahay waxaa ka dheeraysay ilaahay raxmadiisii baad ka dheeraysay arrinkaasi in laga iska ilaaliyo wey lacnadda waxay aad ugu badan tahay haweenka iyo caruurta iyo xoolaha iyo ashyaada la isticmaalaya kulli waa lacnadayaan ragguna waa sidoo kale mararka qaarkood waa yeelaan arrinkaasi ha la iska ilaaliyo axaadiis dad badan baa ku soo aroortay laa yakuunu lacaanuuna shufacaa'a walaa shuhadaa'a yowma alqiyaama noqon mayaan kuwaasi kuwa shafeeco qaada ama kuwa markhaati gala maalinta qiyaama kuwa lacnada badan oo dhaqankooduba saas yahay ma yeelanayaan mansilada ma gaarayaan laa yakuunu lmu'minu lacaanan isna xadiis saxiixa sidoo kale waxaa soo aroortay qof haddaa la nacladid uunan ahal u ahayn adiga kugu soo noqonaysaa man lacana shayئan laysa lahu biahlin rajacat اllacnatu calayh waxay ku noqonaysaa qofkii wax lacnaday ayay ku noqonaysaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa dhacday in xoola la nacladay hal la socotay markaasuu yidhi waxa saaranna ka qaata daaya marka waa fainaha malcuuna yani la isticmaali mahayo oo la raran mahayo lagu intifaacsan mahayo xoolaha waa la sii daynaya saa darteed marka waxaa loo baahan yahay lacnadaas in la yareeyo oo aan lagu dhaqmin oo dhaqan laga dhigan carruurtii baa la lacnadayaa xoolihii baa la nacladayaa ashyaadii baa la nacladayaa arrinkaasi arrin fiican ma ahan qofku inuu iska ilaaliyaa ma garatay lacnadda sabigana hadde isaguna waxa weeye in qof la caayo qofka mu'minka in la caayo isna lama ogola waa iidaa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا dadka mu'miniinta in la dhibo sharcadu ma ogola sibaabu lmuslimi fusuuq qofka muslimka in la caayo fisqi buu keenaya in la caayo wax laga sheego lama ogola arrinkaasi marka in aad la iskaga ilaaliyo weeye waxaa ka sugnaaday nebiga salawaatu ullahi wasalaamu haddii qof xataa adiga wax kugu caayo aad og tahay isagana aad wax ku og tahay ha ku caayin waxaad ku og tahay wain imru'un shatamaka wacayaraka bima yaclamu fiika falaa tucayirhu bima taclamu fiih fainamaa wabaalu dalika calayh qof hadduu adiga ku caayo oo kugu ceebeeyo wax adiga aad maaragtay xaggaaga ah ha ku caayin adna ha ka argudin oo sidoo kale ha odhanin arrinkaasi isaga ayaa xumaantiisu ku dhacaysaa dembigiisa isaga iska leh marka lacnadaas iyo sabaabka oo qofka muslimka ah maxaan ku yidhahdaa la caayo ma bannaana waxaa ka mid ah oo runta iyada laftigeedu soo gelaysa sibaabka tacniga la tacniyo dadka oo waa noocii cayd ah oo kale oo wax laga sheego oo maxaan ku idhaahdaa la aflagaadeeyo ma bannaana siiba dadka ahlu cilmiga ah ma bannaana wax laga sheego ma bannaana waxaa la ogol yahay mawaadin mucayan ah ayaa la ogol yahay daruura keentay oo daruura keentay ayaa la ogolaaday oo sida hadda maalan markii qofku uu fatwo qof weydiinahayo ama xukum ay tahay ama wamaa ilaa dalik ayuunbaa la ogol yahay waxyaalaha qaarkood in la sheego oo qofka ama ay noqoto taskiya iyo maxaan ku idhaahdaa qofka waxaa ku ogtahay inaad sheegtid laakiin lama ogola in la tacniyo dadka ahlu cilmiga ah lama ogola haddaa markaasi wax musawiqihii uunan jirinin oo ninkaa in wax looga sheego ama maalan sunnadii baa la difaacayaa ama waxunbaa maaragtay maaragtay maxaan ku idhaahdaa dan ah oo sharciah ayaa meeshan joogta qofkaasi marka lama tacnin karo hadda ruwaadda oo kale waa la jarxiyaa laakiin ruwaadda marka la jarxinayo dan baa keentay waxaa keenay
in maxaanku idhaahdaa diintii la ilaaliyo ayaa keentay. marka qadar mucayan ah ayaa lagu koobaya, laska wadi mayo. walidaalika baa ibnu daqiiq alciid wuxuu odhan jiray acraadu اlmuslimiina xufraة min xufar الnaar waqafa calى shafiiriha alxukaamu wاlmuxadisuun. dadka xukaamta iyo muxadisiintu waxay saaran yihiin xufradaas gebigeeday saaran yihiin, waa ku dhici karaan hoggaas. waxa weeye marka waxaa loo baahaya iqtisaad, qowlka aad leedahay iyo ficilka. dacniga marka culammada la dacninayana dib badan buu keenay oo ummadda rumuusteedii iyo dadkii kale hogaaminayey ayaa la baabi'inaya, ma garatay. walidaalika waxay odhan jireen culummadu luxuumi اlculamaa'i masmuuma, culammada laxmigeedu waa sumaysan yahay. qofkii ku dhiirada oo arrinka aadana waxa weeye ilaahay qofkaas qalbigiisa waa dhintaa, qalbigiisu waa dhintaa. saa darteed marka in layska ilaaliyo weeye. caqiidata taxaawiyada la akhriyana waxaa ka mid ahayd in dadkaasi wax xumaana aan laga sheegin. dadka culummada ah laa yudkaruuna ila biاljamiil, waman dakarahum bigayri dalika fahuwa calى gayri sabiil. qofkii wax xun ku sheegana ninkaasi jidkii fiicnaa ma hayo. arrinka marka dacnigaas culummada la dacninahaya waa la caayayo waa in laga digtoonaadaa, siiba dalabatulcilmigu waa in iska ilaaliyaan. waxay keenaysaa rumuusta diinta ta laga qaato oo dhan inay la yidhaahdo macno ma leh, la shatmiyo, la sabiyo, wamaa ilaa dalik. arrinta kale oo aafaadka ka mid ah waxa weeye aafada xanta loo yaqaan ama kiibada loo yaqaan. dadku waa ku ibtilaysan yahay in dadka la xanto oo qofka wax laga sheego. waa ibtilo jirta weeye oo rag iyo haweenba, culummo iyo caamaba waa lagu ibtilaysan yahay. waana arrinna loo kaga digay walaa yaktab bacdukum bacdan ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu. inaan asxaman ayaana loo kugu yeeray. markaasaa maalka hadda la bixiyey maal aad iyo aad looga yaxyaxa weeye. adigu walaalkaa ma cuni lahayd hilibkiisa? oo walaalkaayoo masana dhintay ma cuni lahayd? waa maya. hadda tane waa sidii oo kale. cirdiga kan qofka muslimka ahi masuum weeye, waa ilaashan yahay. nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayh xuquuqdii uu xijat alwadaac marka ummadda la hadlahay uu sheegay ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada hal ballaqtu allahuma fashhad. xadiiskaas xuquuqda qofka uu leeyahay waxaa ka mida in cirdigiisa la ilaaliyo, waxba laga sheegin. cirdigaas inaan far la saarin oo aan la maagin baa ka mid ah. saa darteed marka kiibadaas waa lagu ibtilaysan yahay, laakiin arrin la ogol yahay maahan. waa arrin kabiira ah, waana in layska ilaaliyo. kiibada waxaa dhici karta dadka qaar u maleeyaan qofka waxa aad ku sheegtay inuu sidaba u yahayba. wartaasaa kiibo la yidhaahdaa. qofka wuxuunan ahayn haddaad ku sheegtiin waa ku been abuuratay. nebigaana taa sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh atadruuna ma alghiiba qaaluu allah warasuuluhu aclam qaala dikruka akhaaka bima yakrah. walaalkaa wuxuu neceb yahay inaad ku sheegtid. qaala afara'ayta in kaana fii akhii ma aquul qaala in kaana fii akhiika ma taquulu faqad ikhtabtah wain lam yakun fiihi ma taquulu faqad bahadtah. waxaan hadduu uu qabana saan aad ku sheegtay haddii been waxaan leeyahay waad xamatay, haddii kalena waa ku been abuuratay. marka xantu waxa weeye waxaa dhici karta ninkaas qofkaas aad wax ka sheegaysid, ama khilqadiisana wax ka sheegaysid, ama khuluqiisa aad wax ka sheegaysid, intaba lama ogola. waxaana nebigu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi in ay ka mid tahay kabaa'irta waaweyn arrinkaas. ina min arba الriba alاstiطaalaة fii cirdi اlmuslimi bigayri xaq. qofka muslimka cirdigiisa in lagu xadgudbo oo in la saloosho, qofkaas cirdigiisa la saloosho lama ogola. arrinkaas marka in aad iyo aad layskaga ilaaliyo weeye. xadiiska camr bn اlcaas xadiis mawquuf ku ah wuxuu yidhi waxay soo mareen
boqol dhimatay ayay soo mareen markaasuu yidhi libacdi asxaabihi lian ya'kula الrajulu min hada xataa yamla'a baطnahu khayru min an ya'kula laxma rajuli muslim neefkaas dhintay baqasha ah oo meydka ah qofkiin inuu cuno ka dhergo ayaa ka khayr badan inuu hilib muslim cuno oo maantoo dhan wax ka sheego oo iska xagto oo wama ilaa dalik xataa waxa aad sheegaysid ha ku sifaysnaado magarata khilqi ha ahaado ama khuluq ha ahaado intaba nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isa waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixa oo ah waxay uriyeen ayagoo meel maraya riix aad u qurmuun markaasuu atadruuna maa haadihi الriix ma dareemaysaan waxaan waxay tahay haadihi riixu aladiina yakhtaabuuna almu'miniin riixdatan waa kuwa mu'miniinta kuwa xanta urkoodii dee waa la cadaabayaa oo inkaarba bay ku sugan yihiin marka arrinkaasi aad iyo aad in layskaga ilaaliyo weeye markii aakhira markuu tegey israha oo nebiga la dheelmiyey dadku arkay waxaa ka mid ahaa lama curija bi marartu biqawmin lahum adfaaru min nuxaas yakhmishuuna wujuuhahum wasuduurahum faqultu man haؤulaaءi ya jibriil qaala haؤulaaءi aladiina ya'kuluuna luxuuma الnaasi wayaqacuuna fii acraadihim isxaganaya oo jirkoodii xaganaya oo wejigii iyo laabtii iyo dhiig ka sii daynaya oo wala caada cidiyuhu maahan cidiyo caadiyahe waa min nuxaas waa bir marka waxba reebi mayso saasay marka isku xoqahayaan oo isku baabi'inayaan dadkaas waxaa layidhi waa dadka acraadda muslimiinta ah maana loga waaye arrinkaasi marka arrin aad iyo aad khatar waa weeye nebiguna waa ka digay yaa macshar yani munaafiqnima lagu sheegaya yaa macshara man aamana bilisanih walam yadkhul اliimaanu qalbah laa takhtaabu اlmuslimiin walaa tatatabacu cawraatihim ma garatay haracraacinina war dadka muslimiinta daaye war hadday ka magan galeen dadkaas dhibkiina ka daaye marka arrinkaasi waa inagoo dhan inaynu iska ilaalinno markii ay tidhi maxaan ku idhaahda caaishu safiya ay tidhi waa gaaban tahay nebigu wuxuu yidhi laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i اlbaxri lamasajatu hadal waxaa tidhi haddii badda lagu dari lahaa midabkeedu isbedeli lahaa kelmaddaas weynanka ay leedahay yani annaha qasiira xataa mararka qaarkood si tawriye ah ayay u tidhi si tawriye ah ayay u tidhi xataa afka kuba ay bannayn yacni annaha qasiira ma garatay iimaagaasaa ka muuqday arrinkaas waxaa la yidhi hadalkaasi hadal weyn weeyaa layidhi saas darteed marka xantaas oo hadal lagu kala badnaade dadkaas la iska magiciisanahayo waa xasanaadkeennii oo aan dad kale siinayno xasanaadkeennii oo dad kale aanu shaqadeennii oo aynu dad kale u shaqaynayno haddee waa nin muqafaloo caaqa inuu dad kale u shaqeeyo awal baynu shaqo fiican aynan qabanayn oo xaalkeennu xaal ahaaye haddaynu ku darsanno inaannu dad u shaqayno hadda maxay noqonaysaa maxaanay muflis baad noqonaysaa hadhowto atadruuna man ilmuflis mufliska ma garanaysaan nabigu markuu ummadda weydiiyey man laa dirhama lahu walaa mataac markaasuu almuflisu min ummatii waa qofkii la imaanhaya xasanaad tiro badan laakiin muxuu la imaanaya waqad shatama haada waqadafa haada kan waxbuu ka sheegay kan waa caayey kan markaasaa laga kala qaadanaya wixii markay ka dhammaatana sayi'aadkii baa lagu darayaa markaasaa naarta lagu tuuraya ninkaas soo nin khatar iyo maaragtay balaayo ku jira maaha soo nin tacab khasaar maahan maanta hor inaad taa shaqaynaysay waxaagii tacab khasaar noqdaan qof naftiisa raalli waa miyaa jira waa maya walidaalika cabdullahi mubaarak wuxuu yidhi sufyaan ibnu athawri ayaan waxaan idhi buu yidhi abu xaniifa dadka ma xanto weli ma arag buu isagoo xataa qof colla ah wax ka sheegaya markaasuu huwa acqalu min an yusallita calaa xasanaatihi maa yudhibuha intaa baa ka caqli badan yahay inuu xasanaadkiisa ku sallado wax la tegaya yani waxa weeye inaad xasanaadkaaga rag kala siisid waanaad ka caqli roonaataa waad is ilaalisaa qulo kale u shaqaysaa arrinkaasi arrin la raba ma ahan riibadaasi meelaha ay ku bannaan tahay waa meelahaas la sheegay culimmadu ay sheegeen oo nusxiga oo kale haddii qof ku yimaado ku yidhaahdo qoftaasaan guursanaya waxaad ogtahay waa sheegaysaa waida stansaxaka fansax lah hadduu qofku nasiixa kaa ku weydiisto waad u sheegaysaa
waxaa la rabaa markaasoo kale inaad almustashaaru mu'taman waad sheegaysaa. nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii faaduma binti qays ay soo dooneen dhowrka nin wuxuu ku yidhi ama mucaawiya fasucluuk waxa ma haysto wa ama abu jahl falaa yadacu alcasa can caatiqih ama waa nin safar badan ama naagaha waa dilaa. tazawajii usaama bin zayd, usaama bin zayd guurso ayuu ku yidhi. markaasay tiri saas kacraa usaama bin zayd baan guursan karaa. usaama maxay saa u leedahay? usaama haddii aabbihiis oo zayd ibnu xaarisa ah addoonnimu soo maray, isagana haween madow baa dhashay usaama bin zayd. marka waxay u diidan tahay waa saas gabar qurashiyadahoo maxaan ku idhaahdaa haddee ka dhalatay bay ahayd. markii dambe way ku qaracday, usaamay guursatay, khayr badan bayna ka heshay, khayr badan ayay ka heshay. saa darteed marka waxa weeye markaasoo kale nusxiga waa la ogol yahay, ruwaadda la tajriixinayo waa la ogol yahay, alqaabta mararka qaarkood loogu yeerayo sida acmash oo kale haddaan wax kale lagu aqoon wamaa ilaa dalik waa la ogol yahay wamaa ilaa dalik, laakiin bilqadri اlmaxduud qadarkaas la ogol yahay ayaa maxaan ku idhaahdaa mararka qaarkood qof inaad uga digaysid wax shar ah iyo wax la mid ah oo kale waxyaalaha la ogol yahay ayay ka mid tahay. waxyaalaha aafaadka lisaanka waxaa ka mid ah aلطacnu biاlaxsaab wاlnasab, dadka ansaabtiisa wax laga sheego oo layado hebel waa reebri fulaan khayr ma leh ama waa laangaab ama waa kan wamaa ilaa dalik. arrinkaasi waa arrin aad u xun wey, waana jaahiliye wey, waa arrin jaahiliye ah oo waxaa ka mid ahaa umuurta jaahiliyada sida nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aلطacnu fi اlansaab. aلطacnu fi اlansaab umuurta jaahiliga ah oo ummadda tan weli ku baaqiga ah ayay ka mid tahay oo ilaa hadda ayna daba socota in dadka qaarkood la takoorayo, dadka qaarkood maxaan ku idhaahdaa la tacninayo, qabaa'ilkii ay wax iska sheegayaan wamaa ilaa dalik. arrinkaasina arrin fiican ma ahan. ulfadii iyo ummaddii wada socodkeedii ina akramakum cinda allahi atqaakum, dadka waxa ugu khayr badan waa kan ugu taqwo badan ayaa ugu khayr badan. hadda usaama bin zayd oo kale nebigu raggii mucaawiye iyo intuu u diiday oo u kala teliyey buu usaame guurso. sidoo kale isagii yidhi yaa bani bayaada ankixuu abaahin, u guuriya kana guursada. wa kaana xajaaman, wuxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa mid dadka tooba. mihanka qaarkood annaga iyo carabtuba waxyaalaha mihanka ah oo farsamada ah waxaa moodaa maadaama xoololey aynu nahay ayaguna ay xoololey yihiin, dadka farsamo yaqaanka ah badanaaba sibay u riixaan. saa darteed marka arrinkaasi طacniga ah oo la طacninayo, yani arrinkan kale oo haddee quursiga ah sidiisu u yahay mushkilo caamahoo u baahan haddee kacaan buu u baahan yahay, thawruu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay. soomaaligana haddee mashaakilkeedu tirada ka bateenoo maalinba mid horlaa soo kordhaysa. marka annaga oo awalba mid maaragtay la circiiraynay ba habda mid imaanaysa. marka طacniga la طacninayo ansaabta waxa weeye ayada laftigeedu wuxuu ka mid yahay aafaadka carabku uu leeyahay. in laga nabadgalo na ay adag tahay siiba wadciga soomaaliya iyo wixii la halmaala. arrinkaas marka in aad iyo aad laskaga ilaaliyo weeye. waa umuurtii jaahiliga oo diinta tani ay u timid inay tirtirto u timid wey. aafaadka waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaan namiimada ama warkala qaadka. war qof laga soo qaado oo qof kale loo geeyo ayada oo calaa wajhi اlifsaad ah. arrinkaasi waxa weeye waa kabiira, waa arrin weyn. ilaahay wuxuu yidhi walaa tudic kula xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiim. qofkaas sifaadka lagu sheegay waxaa ka mid ahaa annahu kaana yamshi biاnamiima, inuu warqaad ahaa, warka naqlintiisa inuu caan ku ahaa. walicaada mashaa waxa weeye siyaqda maaragtay mubaalagada ayay ka mid tahay. warka in la naqliyo diintu ma ogola oo laba qof laisku diro
loo kala warsheego waxaasuu ku lahaa arrinkaasi lama ogola nabiga waxaa ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi laa yadkhulu ljannata qattaab wa fii riwaayati namaam qofka warka dadka u kala qaada jannada geli mayo waxa weeye waa nin dembiila weeye dembi ayuu la yimid saa darteed marka waxa weeye inuu is-ilaaliyo weeye wuxuu nebigu soo maray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi laba qabri oo la cadaabayo markaasuu yidhi waa la cadaabayaa waxaa lagu cadaabayaa shay ay ka dhowrsan waayeen ma ahan ama axaduhumaa fakaana yamshi biاnnamiima midkood warkaas unbuu ku rafaadsanaa inuu isagu noqdo saacid bariid dadka inuu warka u kala qaado aad moodid in shaqaalo laga dhigtay oo inuu kanisaasu ku lahaa weli cadaa wax ka xoog badan oo ka dulqaad badan oo waxaa dhici karta afarta baynajoho inuu war u kala qaado haweenka waa isticmaalaan raggu waa isticmaalaa waa cudur nooc ah oo ah jira amraad nafsi ka mida weeye in qof uu shaqo ka dhigto inuu dadka war u kala qaado kaasuu waxbuu kaa sheegayey saasuu ku lahaa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi washiraaru ummatii almashaa'uuna biاnnamiima almufariquuna bayna alaxiba ummaddayda kuwa ugu sharka badan waxa weeye kuwa la socda oo warka qaada oo dadka saaxiibada ah oo isjecel kala geeya nin naagsi baa la kala geynaya nin iyo shariigiis oo ay wada shaqaysanayaan baa la kala geynaya shiikh iyo ardaygiisii baa la kala geynaya laba nin oo saaxiibaha la kala geynaya yani fasaad aad u weyn weeye walidaalik wuxuu ay yidhaahdeen culummadu ninka namaamka iyo kadaabku waxay fasahaadiyaan fii saacatin maa laa yufsiduhu saaxiru fii sanatin ninka namaamka ah iyo ninka beenlowga ah waxay fasahaadiyaan hal saac waxay ku fasahaadin karaan wax qofka saaxirka ahi uuna sanad ku qaban ay ku fasahaadin karaan adduunka hal mar isku hulaaqahaya ma garatay waa isku hal mar baa dadku isqabsanaya war xagee laga soo galay waa ninkaa saacid bariidka ahoo warka loo diray inuu warka dadka u kala qaado ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado qofkaas un weeye arrinkaas arrin khatara weeye nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ka codsaday asxaabtiisa inaynan war u soo naqlinin fainii uxibu an akhruja ilayhim wa ana saliimu satr in war la iiga keeno saxaabadayda war la sheego ma ogoli saa darteed marka arrinkaasi waxaa loo baahan yahay qofka warka loo keeno oo nabimadaasi soo gaarto maxaa laga rabaa inuu suubiyo waxaa laga rabaa sida uu sheegay imaam nawowi arrimahan soo socda inuu suubiyo marka ugu horaysa warka inuuna rumaysan maxaa dhacay ninka warka keenay faasiq weeye ninku hadduu namaam yahay waa faasiq kalaamulfaasiq miyaa la qabanaya la qaban mayo midda labaad waa inuu ka reebaa uu yidhahda waraa warkaa jooji halkaa ku xir waa inuu yidhaahdaa maxaa dhacay ismiguu faraha kula jiraa iyo dembigana qofka inaa uga digtaa war jooji baad leedahay qofkaas ficilka uu subiyey waa inuu dadka ilaahay u nacaa uu yidhahda waxaasi wax fiican ma ahan ma garatay waa inay la timaadaa qofka walaalkiisahoo ka maqan waa inuunan xumaan u malaynin oo warkaa laga sheegay inuu yidhi waa inuu naftiisa ka sarfiya naftiisa la diriraa uu yidhahdaa ninkaas waxaa ka suurtagal ma ahan arrinkan loo keenay waa inuunan ku xambaarin inuu tajasus iyo warkaa inuu raadiyo oo dhegedhegeeyo oo baaro waa inuunan ku xambaarin oo yidhahda war xunoo laguwaa ma garatay meel ku tuuro saasaa laga rabaa qofkaasoo kale waxa weeye war la sheegay hadda adduun gadin maayo adiga hadda haddii uu war lagaaga soo naqliyo qof lagaaga soo naqliyo fardan wa taqdiiran hadduu xataa yidhi adiga waxaa loo baahan yahay inaad tahay nin intaa ka weyn oo warkaas sarfin kara inaad tahay loo baahan yahay saasaa loo baahan yahay midda kale waxa weeye waa inuunan isaga laftigiisu uunan hadda sii naqlin uuna odhan wallahi fulan saasaa laga sheegay ilaa isaga laftigiisu namaan buu noqonaya muslimiinta fulan saasuu lahaa ma garata arrinkaasna lama rabo waxaa loo baahan yahay marka namaamada ama wax isku dirka in la joojiyo oo haddii qofku uu dhaqan ka dhigto qofkii war u keenaba inuu yidhahdo warkaa u kaadi waraa ittaqi illaah waadan war loo keeni maayo midda labaad hal ogaada ninkii war adiga kuu keena waa kaa qaadaya adigana ta ogow dhaqankaasi waa dhaqan jira waa la tajrubeeyey mujarab wey ninkii war kuu keena anna waa kaa qaadaya
ama run ha ahaade ama been ha ahaade saa darteed marka lama ogola mararka qaarkood war waa loo sheegi karaa ninka madaxa ah iyo dadka qaarkiis war waa loo sheegi karaa iyadoo la rabo xaqada inay kor istaagaan yani qadiyadaas namaamo ma soo gelayso oo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu qaybiyey haniimuu qaybiyey amwaal buu qaybiyey la keenay amwaashaas la keenay markuu qaybiyey ayaa nin wuxuu yidhi qismadan caadil ma ahayn qismada tani caadil ma ahayn nin baa uun warkaas yidhi nin maqlahayey baa nebigu u soo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi markaasuu nebigu arkaa wuxuu yidhi raxima allaahu muusa laqad uudiya biakara min hada fasabr ilaahay ha u naxariisto nebiyullaahi muuse intaa in ka badan ayaa la dhibay waana adkaystay haddaan anigu cadaalo suubinaya nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh yaa cadaalada yay ka imaanaysaa cadaaladu hadduu isagu suubin waaye marka wuu u naqliyey warkaas walidaalika baa bukhaari wuxuu baabeeyey baabu man akhbara saaxibahu bima yuqaalu fiih laakiin arrinkanoo kale waxay u baahan tahay almuwaazana bayna almasaalixi wاlmafaasid waxaan aad naqlinaysid haddii maalan qofka kan inuu rabo qofka inuu dilo hadduu rabo qofka inuu dhaco hadduu rabo waxa inuu ku suubiyo yacni war maxaan ku idhaahdaa mafsada ka dhalanayso hadday tahay oo kale haa hadday tahay nin xaakimaho inuu waxyaalo badanoo xaqa ogaado loo baahan yahay haa hadday tahay arrimo maxaan ku idhaahdaa ummadda muslimiinta ay u dhutinayso haa laakiin hadday tahay hebel baa saa ku lahaa iyo hebelaayaa saa ku lahayd iyo wamaa ilaa daalik warkaasi waa namiima waa in halka la joojiya haddaad og tahay inaadan kala saari karin oo arrinkaasi adiga aadan xaq u lahayn baabka iska xir asalaamatu laa yacdiluha shay salaamada wax la mid ah ma jiraan arrinka kale oo aafaadka ka mid ah afxunida iyo badaa'ada qof afxun dadka ilaahay oo u kala dhaliyey qof waxaa jira afxumidu ay dhaqan u tahay oo khilqa u tahay iyo dad hadal wanaagga ay u tahay dhaqan sababtu kelmadda wanaagsan alkalimatu اطayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqo qof waxaa jira hadal fiican oo ilaahayba saas u dhaliyey qofna hadal xumida iyo qafalmardaxa iyo sida uu hadlahayo waa un wax qof badii'a wey oo inaad wax ku darsatid oo aad wada hadashaanba aad odhanaysid warkaadi ninkaasoo kale lama rabo diintu ma rabto nebigu waa ka digay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in allaha laa yuxibu kulla faaxishin mutafaxish ilaahay ma jecla qofka fuxshiga badan oo hadalka xun ilaahay ma jecla nebiguna wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina shara annaasi mansilatan cinda allahi yowma alqiyaama man tarakahu الnaasu itiqaa'a fuxshih dadka waxaa aakhire ugu laalaado oo ugu boos liita qofku dadku uga tagaan ayagoo ka cararahaya afxumidiisa haddaad wax isku qabsataan oo aad tidhahda waxaan u sheeg kaar baa dhacaysa hadalxumida ninkaasoo kale hadalxumidiisa ninka badii ah oo afka diintu ma ogola ama haween ha ahaada ama nin ha ahaadee hadalxumidu wax aad u liita weeye waxaa la odhan jiray alamu khalqi اlmu'mini alfuxsh yani waxa ugu xun oo qof mumina akhlaaqdiisa ah waa fuxshigaas nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isaan ku dayananaa lam yakun faaxishan walaa mutafaxishan ma ahayn walaa badiyan min afxun ma ahayn walidalik buu dadka saa ku kasbaday ma garatay fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd dhallayf ah dadku waa ka kala carari lahayd sidoo kale qofka saas u afxun dadku waa ka cararaan warkaas haynugu daardaarinina marka insaa lagaaga tago liyaa warkaas haynugu daardaarinina arrin fiican maaha xadiis daciifa wuxuu ahaa low kaana alfaxshu rajulan lakaana rajula suu hadduu fuxshigu ahaan lahaa nin xun buu ahaan lahaa nin xun ayuu ahaan lahaa marka fuxshigaasi weer aad iyo aad looga digtoonaadaa oo maxaanku idhaahdaa waxaa ka mid ah aafaadka lisaanka waxa buhtaanka la yidhaahdo been abuuradka oo qofka in lagu been abuurto ah oo ma ahan isagii kiibada farqa u dhexeeya kiibadu qofku waxa kan waa wuxuu ku sifaysan yahay laakiin kan waa buhti oo wuxuunan ahayn ayaad ku sheegtay
buhdigaas iyo buhtaankaas lama ogola way aad iyo aad la iskaga ilaaliyaa oo aan dadka muslimiinta ah waxaynan qabin aan lagu been abuuran wuxuu beri ka yahay magarata in lagu been abuurto shareecadu ma ogola waxyaalo badan oo lisaanka in laga ilaaliya ah ayaa jira oo ay ka mid tahay kaftanka tirada badan ama qosolka tirada badan labada midna lama ogola misaaxa nabigu kaana yamzaxu walaa yaquulu ilaa xaqan wuu kaftami jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laakiin waxaan run ahayn ma oran jirin waxaan run ahayn ma oran jirin laakiin haddii masxigu uu been keenayo hadduu maaragtay maxaan ku idhaahdaa tirada ka bato haybadii dhunto lama ogola misaaxa noocaasoo kale ah lama ogola daxika laftigiisa qosolka lama ogola inuu tirada ka bato nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhaqankiisa wuxuu ahaa attabasum inuu dhoolla caddeeyo ayuu ahaa laakiin qahqahadatan iyo maxaan ku idhahdaa qosolka kan tirada badan ayana yuqasi alqalb qalbiga ayuu dhinsiiyaa lama ogola marka qosolka tirada badan in lagu dhaqmo lama ogola waa in la iska daayaa misaaxana waa in aad loo yareeya nabigu sal l kaana yamzax laakin kaana laa yaquulu ilaa khayran kaana laa yaquulu ilaa khayran marka intaa ka soo baxno waxaa loo baahan yahay in carabka ama samtiga waxa la yidhaahdo iyo aamuska in lagu dadaalo haddii aan wax dan ah laga hadlayn qofka waxaa loo bahan yahay carabkiisaas inuu ogaado inuu ka mid yahay shaqadiisa maadaama uu shaqadiisa ka mid yahayna loo baahan yahay inuu ilaaliyo marka asamt iyo carabkaagaan inaad xakamaysid oo ka adkaatid waa arrin loo baahan yahay wixii aan soo sheegnay oo dhanna tanaa isku fuuqsanaysa tanaa baytulqasiidka ah carabkaaga ilaalintiisu waa mas-uuliyadee ku saaran waa mas-uuliyadee ku saaran walidaalika baa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiistii jawaamic ilkalim lagu sheegay waxaa ka mid ahaa nin baa wuxuu weydiiyey xadiinii biamrin actasimu bih nebi allow ii sheeg arrin aan iska laalaadiyo oo ku dhogo qaala qul rabbiy allaahu uma istaqim waxaad tidhaahdaa ilaahay baa allahay ah dabadeedna toosnow qultu yaa rasuula allaahi maa akhwafu maa takhaafu calay waxaad igu cabsi badan tahay maxaa weeye faakhada bilisaani nafsihi uma qaala haada waa carabka kan war carabka kani waa khatar iska ilaali xadiiskan wuxuu ka mid yahay xadiis la yihahda jawaamic ilkelim oo nebigu kelmado yaryar uu ku gutay macaani tiro weyn saasuuna ahaa waxyaalaha la siiyey jawaamic ilkelim bay ka mid ahayd dadka salafka ahina hadalladoodu waaba yaraay waa tirsanaayeen ma hadal badnayn innaga baa tarorogtu nugu badan tahay iyo hadalka tirada badan iyo tartarada dadka khalafka ah oo dambe ayay ku badan tahay walidaalika ibnu qayim aljawsiya wuxuu odhan jiray kalaamu salafi qaliilun kaiiru lbaraka salafka hadalkiisu waa yaryahay laakiin waa baraka badan yahay wa kalaamu lkhalafi kaiirun qaliilu lbaraka hadallada laga soo naqliyo dadkii waa fiicnaa waa kelmada kooban laakiin ilaahay qadartiis macaani badan ku fadhida xikmad badan ku fadhida hadal la qaban kara ah hadal murti ah ayaa laga soo naqliyey marka kufa lisaanaka haada carabkaan baa layidhi iska ilaali nebigu waa ka magangeli jiray ama wuxuu barayba qof maxaa sida ilaahay loo magangalo markaasuu yqul acuudu biاllaahi min shari samcii wa shari basarii wa shara lisaanii lisaanku shar buu leeyahay xanow beenow namiimow dacniyow sabbiyow wamaa ilaa dalik waxaan ka sheekaynana iyo wax la mid ah oo dhan carabkii weeye marka sharkiisa baan ilaahay kaa magan galay sidoo kale waxaa ka sugnaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi amsik calayka lisaanak walyasacka baytuk wabki calaa khati'atik waa carabkaaga qabo guraagu ha ku deeqo ku boy dembigaaga qofku inuu shanigiisa oo inuu og yahay in beri la xisaabinayo isaga keligiis inuu qabriga gelayo isaga keliya maaragtay aakhira ilaahay uu hor istaagahayo
laysa baynahu wa bayna allahi turjumaan wax u dhaxeeya aynu jirinin arrinkaasoo kale waxaa loo baahan yahay qofku inuu iska warqabo uu og yahay inuu ku kalsoomin adduunka kan iyo dhaldhalaalkaas inuu ku kalsoomin marka carabkan qabaa la yidhi carabkan qabo sidoo kale marka zamanka fitnada la joogana kaba sii badan marka zamanka fitnada la joogo oo sidaanoo kale ah waxaa loo baahay carabkan in aad loo adkeeyo amsik calayka lisaanak nabigu saasuu kula taliyey saxaabigii wakhud maa tacrif wadac maa tunkir waxa taqaan marka zamanka fitnada la joogo wakhtigaan oo kale ah waxaa loo baahay waxyaalaha muxkamaadka loo yaqaan in qofku iska laalaadiyo muxkamaadku maxaa weeye cirdiga muslimka ahi in la ilaaliyo wey dhiigga muslimka ah in la ilaaliyo wey hadihi min almuxkamaat bay ka mid tahay waxyaalaha marka waxa layska laalaadiya markaasoo kale waxyaalaha muxkamaadka ahoo aad u haysatid adilada ayaa iska laalaadiya waxyaalaha loo xooxoqahayo oo laysku shidaynahayo oo shubahaadkeeda lahoo magiciisigeeda le markaasoo kale waa la iska ilaaliya khud maa tacrif wadac maa tunkir nabigu ummadiisa waa la taliyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh saa darteed marka waxaa loo baahan yahay wakhtigaan oo kale zamankan hadda aynu ku jirno carabka kan in loo yeelo quful maaragtay lagu xiro baa loo baahan yahay waxaa nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markii bini aadamku uu waabariisto faina alacdaa'a kulluha tukafiru اllisaan تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا xubnihii o dhan baa la hadlaaya carabkay la hadlaayaan oo u khuduucayaan oo u dullaysan yihiin waxay leeyihiin ilaahay ka cabso ilaahay nooga cabso haddaad adigu fiicnaatay waa fiicnaanayna haddaad adigu xumaatay waa xumaanayna carabkan marka waxaa loo baahan yahay in la ogaado inuu khatar yahay khayrkiisana uu leeyahay nebiga waxaa ka sugnaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi ha ku hadlin bikalaamin tactadiru minhu hada hadal aad beri ka cudurdaaranaysid ha ku hadlin ama xanaaq baa kaa keenaya ama hubsina la'aan baa kaa keenaya ama mawarac la'aan baa kaa keenaysa inaadan mutawaric ahayn waad og tahayoo ibnu qayim hadal uu qoray oo cajaa'ib leh baa jira tara arajula yushaaru ilayhi biddiin qofka diin isagoo lagu sheegahayo oo yatawaracu min alظulm waakli اlxaraam wاlnadar اlmuxaram walisaanuhu yafri fii acraadi الnaasi laa yubaali ma yaquul dadkaas nin waxbuu ka sheegaya kaas saan weeye mararka qaarkood dadku farsamooyinay bay yaqaaniinoo hadalladaas sida lagu soo saara mararka qaarkood waa si cajaa'ib leh waxa wallahi anugu dadka kama hadlo oo dadka ma xanto oo xumaan kama sheego fulaan alla yahdiihi wallahi ninkaasi xaalkiisu ma fiicna yacni siiqa wadaadnimo ahoo aad iska dhigaysid maxaan ku idhaahdaa nin yataraxamu calayhi waa asaaliibta shayطaaniga ahoo dadka lagu bannaysto oo maxaan ku idhaahdaa xumaanta looga sheego ay ka mid tahay xumaanta looga sheego ma garat in mararka qaarkood aad isku khaladid waxyaalaha diinta lagu xifdiyey oo ah aljarx wاtacdiil iyo in aadan dadka ilaahay iska maartid oo maanta ninka kan riwaayadda looga baahan yahay maxay tahay fulaan markaa la adallu min ximaari ahlihi maanta riwaayadda ninkan gashay maxay tahay khawaarijta markii lala doodaya waagii zamankii cumar ibn cabdilcaziiz waxaa ka mid ahaa markii lala doodahayey oo raggu la doodeen waxay yidhaahdeen ma uu maxaanku idhahdaa ma uu nacladin raggii maxaanku idhahdaa saa iyo saa yeelay markaasuu la dooday wuxuu yidhi idinku haamaan intee baa nacladaan haamaan markaase wallahi maba nacladnaba ilaa warba kama hayaan garata maxaa u oran weeday bi fircoon maxaa u lacnadi weeday waxaa ka baqay inay yidhahdaan buu yidhi fircoon waa lacnadnaa ilaa sababtu isaga qur-aanka iyo haamaan waxaa dhici karta inaan dad badan ku baraarugsanin yaa lacnadaa ma garata waxaa dhici karta inaan cidiba ku baraarugsanin marka waryaad ninkan kuu diray adiga yaa xasiibkaaga dhigay markaad
tuwasic الاتهامات ad qaybinaysid wax ka sheegaysid dadka ilaahay oo nin waliba qaa'iba uu ku leeyahay yada ka xisib kaaga dhigay waraad yaad khatar waawe xadiistaas marka inaanu badino oo sardino waxa keenaya maqaamka khudurada uu leeyahay yani waxa weeye waxa dhacaysa qofku inuu mutadayin yahay salaadii xaadirayo soomkii xaadirayo quraanka akhrisanayo xaraanta iska ilaalinayo laakiin carabka kan maare waa loo laayahay carabka kani waa saliid ummadda ilaahay waa lagu salladay arrinkaasi marka waxa weeye arrin loo baahan yahay in lagu degtoonaado wadaadka xadiista waxaan u soo badiyey 2 iyo 3 baa ku filayd laakiin waxa weeye maqaamka khatiir ah المقام خطير marka maadaama arinku saas yahay hadalatan in la sheego waa loo baahan yahay sidoo kale anigu wuxuu ku yiri muaad kuffa alayka hada markaasi man loo qabanaya waxaan ku hadalno hooyada ku weydiiyo wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim dadka maxaa naarta ku tuuraya dadku naarta waxay ku galaan laba arrimood ugu badan الفم والفرج أفكا يفرجك أي أوبا حنات الوقت عرب كاس أما حرانها عنو أما مقعيسها عنو أما بينها الشيغو أما تد إلهي هماغو وأو شيدة سعوتو ولذلك ما النبي وحي من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة أفك إلهي كإلاليه كان dhibaatadiisa iyo farjigiisa dhibaatadiisa ninkaas jannadu galaya man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna farjayhi adman lahu aljanna marka arrinkaas aad iyo aad in loo ilaaliyo weeye waxa marka arrinkaas lagu xakamayn karaa man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut ama hadal fiican dheh oo birito aad ogtahay ajir inaad ka helaysid hadii kala soo maahan aamus رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم هو إلهي هو نحرسته هدو هلان خير بكيلي أو أجر بكيلي هديك رنا وآموس يايو وأنبت قليا وحانبي من صمت نجا أفك آموس وأنبت قلع صادرت المركة هذا كوحا لو بهاي معهن إن خيرك لقى آموس ولذلك بقى أحنف بن قيس مركة لمرمي أولي يري hadalka iyo aamusnaanta keeda fadli badan wuxuu yiri hadalka ayaa fadli badan hani hadalkii khayr badan buu wataa waa mutaaddi yani waxa weeye waa macruuf mutaaddi ah waa taaca mutaaddi ah waxaana kamida usuusha caamka ah al-ibadatu al-mutaaddiyatu khayrun min al-ibadati al-qasira ibadada gudbayso naficeedu dadka gaarayo waa ka khayr badan tahay cibaadada qofka kaligiis anfacaysa marka qofka kaligiis aamusan isaga kaliya anfacaysa laakiin umadu waxay u baahan tahay in khayrka loo sheego sharka looga digo laakiin macnaheedu maahan in dadka la maago dadka wax laga sheego lagu dhaco xumaan maaha taa lama ogola marka qaarkoodna waxa weeye hadduu ku cajab geliyo hadalku oo aad la yaabtid inaad aamus badan tahay oo markaasna cujbigaaga waxaa ku jabinaysaa inaad hadashid haddii hadalkaaga as leedahay war dadku hadalkaaga waa jecel yahayna waxaad ku jabinaysaa inaad aamustid Umar Abdul Aziz baa soo galay minbarka waa ka hadlay wuxuu arkay in hadalkiisii aad loola yaabay fanazala min al-minbar waa ka soo degay dadku ficil bay u baahan yihiin hadal uma baahnayo wuxuu isiri ama guruur kugu dhacaayo cujbi kugu dhacaa marka arintaas muwaazana ay u baahan tahay hadalka markii la hadlana ila hadashid markii loo baahan yahay ina aamustidna aad aamustid saas loo baahan yahay laakiin kullayba qofka aamuska badani waa mahiib waa kadimi yar yahay qofka hadalka badan oo sarfarada badan hada mulaaxad waa arrin mujarrab ah Umar ibn Abdul Aziz waxa ka sugnaaday inuu yiri man alima anna kalamahu min amalihi alla kalamuhu illa fi ma la ya'nihi qofkii og hadalkiisu inuu kamid yahay amalkiisa waxa yaraanaya hadalkiisa yaraanaya illa wahdan ugu jirta maahane ولذلك حديث صحيح هو الله شيء مدار الإسلام إنه كجرو وحكمه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
qofku waxaan dan ugu jirin inuuna ka hadlin. shaydaanka waxay yidhaahdeen, wuxuu yidhi meeluu ku yidhi annagu ma naqaane soomaali unbaa ka maqalnay carruurtayda diqsigaan ugu jeclahay meelaan u diray badalaq buu yidhaahdaa. marka waxaa loo baahan yahay in carabka kan la ilaaliyo oo qofku wixii dan ugu jirto keliya ka hadlo. walidaalika baa ibnu cumar waxaa nin u soo qoray, wuxuu yidhi cilmi ii soo qor buu yidhi. markaasuu yidhi ina alcilma kaiir walakin in istaطacta, waa ku soo khatimaya insha allahu, walakin in istaطacta an talqa allaha waanta khafiifu الظahri min dimaءi اlmuslimiin khamiisa اlbaطni min amwaalihim kaafi الlisaani can acraadihim laazima liamri jamaacatihim fafcal. cilmi waa tala badan yahay bu, laakiin haddaad awoodi kartid inaad ilaahay la kulantid adigoo aan dhiig lagu haysan, dhiig islaameed, adiga oo xoolo islaameed aan lagu haysan, adiga oo aan cirdi islaameed lagu haysan, adigoo ummadda jamaacadeedii iyo maxaanku idhaahdaa midnimadeedii dhex maraya oo ku ag jira, fafcal, saa yeelbu. marka waxaan ku soo khatimahayaa hadalkii nebigu uu xijat alwadaac ummadda u soo jeediyey, oo weli caada khudbaddaasi waxay soo noqnoqotay 3 jeer. nebigu maalintii tarwiyada ummadda waa la hadlay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi, carafo waa la hadlay, ayaamu tashriiqna waa la hadlay. ummaddaas khudbadda uu u jeediyeyna bacdahaana dhow iyo 80 maalmood kadibna ilaahay xaggiis buu aaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waa ku celcelinaya ina amwaalakum ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada allahumma hal ballaqtu allahumma fashhad. saasuu ku celinaya. anaguna insha allahu cida iyo mawcida inoo tahay, ilaahay nagu anfaco. ilaahayow carabka kan sharkiisa naga magangeli, nagu kaalmee inaan ku xakamayno khayrka. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. su-aashu tahay waddan baanu qariib ku nahay, waddankaasi bidaaquu rabaa, bidaaqadaas been baan sheegaynaa meelaanaan ku dhalanin iyo magacyada mararka qaarkood waa bedelaynaa. been waa been wey, been magac looma bixin karo oo aan been ahayn. marka meeshaan kuma dhalan, dhacana laguma yidhaahdo, naftaaduna u dhiman mayso. soomaaliya waa lagu noolaan karaa, ma garatay? ummadda tan ka soo hijroonaysa waddankeedii oo soo bannaynaysa, iyo u soo bannaynaysaa inay islaaxiso weeye oo hagaajiso. inta fiican hadday ka soo tagto yaa waddankii ku haray. waddanka kan waxaa moodaa in loo tashadayoo la rabo in lala wareego, maadaama dadkii ay ka maxaanku idhaahdaa ka soo tegaya. halka kale warkaan nuxurkiisu waxa weeye xarakaadka islaamiga ahi way isxantaan. qolada kale waxbay ka sheegtaa, arrinkaasi arrin dhaba wey. inbaa yidhi baa layidhi haddaan idhaahda dab ma afka ay guban, waxa weeye waa arrin xaqiiqahu jirta wey. waana sayi'aadka ama masaawi'da xarakaadku leeyihiin. waxaa dhici karta haddii arrinku yahay manhaj iyo aragti, hadduu yahay ahlan wasahlan. qofku hadduu yidhaahdo aragtida noocaasa ama nuqdada noocaasa mukhaalifun lisharci bikada wakada, arrinka noocaasi diinta kuma bannaana, arrinka noocaasi waa saa, ninkaasi xaq buu leeyahay. laakiin ashkhaas haddaynan bidca bala ah faraha lagula jirin, bidcat الrafd iyo bidcat alkhawaarij iyo bidac asuufiya iyo haddaan bidcooyin balaa faraha lagula jirin oo ummadda looga digayno la odhanayn war qoladaas dhibaato badan iyo diinta inaka fasahaadinin hadday tahay ahlan wasahlan, waa meelaha bannaan bay ka mid tahay.
laakiin hadday tahay maxaanku idhaahdaa labadii meel fadhiisataaba ay yidhaahdaan innaga keliyaha dadka u fiican haddee maxaanku idhaahdaa waxay ila tahay ummaddatan khayr laga waayi maayo looma fiicna ummaddatan ilaahay baa maaragtay ka warqaba qofka u fiican saa darteed marka falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa waxa fiican waa manhajka caddeex adiga iyo manhajka laba qof baa kala tihiin wasaa la ogaadaa marka wasali allahuma wasalam cala nabiyina muxamadin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin su'aal kale ma jirta